daawadayaal ku soo dhawaada qaybtii labaad taariikh faneedkii allaha u naxariistay fanaanadeennii caanka ahayd xaliimo khaliif magool aan ku bilaabo la kulankaygii magool markii ugu horraysay waxaan ku arkay bandhig faneed lagu qabtay magaalada dubai waana bilowgii sannadkii 1986 habeenkaas dhuunta ayaa xidhantay oo aad ayay u xabiibsatay markii ay masraxa isa soo taagtay iyadoo halkaasna sida caadada ah aad loogu soo dhoweeyey looguna sacabtumay markii ay ku dhawaaqday sadarradii ugu horreeyey ee mid ka mida heesaheeda caan baxay dhirta xididka hoosaa dhulka loogu beeree erayada heeskaas waxaa curiyey sannadkii 1964 abwaan xuseen aw faarax dubbad markii codkeeda uu sare u kacay sidii caadada u ahayd ma sii wadi karin oo heestii waa ay joojisay si ay iskaga saarto xabeebta dhuunteeda xirtay si codkeeda uu nadiif u noqdo daawadayaasha badankood waxay sheegeen in habeenkani uu habeen xun u yahay magool sababtoo ah waxaa jiray hargab baahsan oo ay ka soo kabanaysay laakiin tiro yar oo naga mid ah oo aad ugu riyaaqsanaa qiimaha dhabta ah oo ay magool leedahay ayaa dareensanaa in arrin walwalkeeda leh ay wajahayso heesaagii ugu wanaagsanaa xagga gabdhaha ee hoyga miisiga soomaaliyeed uu soo saaro abid saaxiibkay cali daaraabulsi oo geeriyooday ahaana weriye taariikh yaqaan ah iyo aniguba guriga ayaan aadnay innagoo murugaysan anigoo og arrinta nagu dhacday ayaan haddana arki karay in wax aan wanaagsanayn oo burbur weyn la mid ah uu u dhow yahay in uu ku dhaco qaranka soomaaliyeed aad ayaan uga murugooday dhacdadan ma awoodi karin inaan hurdo lado waxaana afkaygu uu qabatimay erayadii cabdisinimo kollaba caawa seexan maaye siraadku saliid ma leeyahay waxaan qoray erayo aan ku ammaanaya taariikhda ay magool leedahay anigoo ku calacalaya in wixii qoraal ah ay ku dhici doonaan fannaan kastana uu isla dariiqaas mari doono iyadoo ay shucuurtu ama dareen xooggani ka tambadiyey ayay ka mahadcelisay kadib markii ay dhegaysatay abwaankan aan la garanayn waana xilli ay ka soo degaysay masrax bandhig faneedkeedii labaad iyadoo soo xiganaysa erayadii ugu dambeeyey ee aan ku soo gebagabeeyey magool waxay u mahadcelisay bashiir abudabay taasoo keentay in saaxiibkay daaraabulsi oo ila fadhiyey uu gacantiisa jug igu siiyey nasiib darro erayadaas meel fiican ma aanan dhigin oo waa iga lumeen inkastoo aan gurigayga ka baaray erayadaas kadib markii ay isoo gaartay dhimashada magool waan heli waayey waxaana ka xasuustaa dhowr eray iska daa caddaan iyo kuwa loogu ciidmee ku caweeye noloshee hadday carab ka dhalatana cagaheeda hoosiyo ciidday ku joogtaa la cadtoobsan laayo maalmaha la ciidiyo habeennada caruusyada ciyi layska siin laa